Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada waa maanta iyo qiso kale. Haddaad ka cusubtahay channelka noo saar subscribe. Ay tahay markii kugu horeysay gambaleelkana furo insha Allah soo markasta oo noqotid daawada ugu horeeya. Haddaad jeceshahay qisooyinka markastana nagu xidhno fadlan insha Allah. Qisadeena maanta waxay ku socotaa gabar la yiraahdo Lorena waxay dhalatay dalka Talyaaniga. Gabadhan da'deedu waa 27 jir. Waxay la nooshahay qoyskeeda waxaana weeyaan dhakhtarad ka shaqeysa dhakhtarada waaweyn ee dalka Talyaaniga. Lorena maadaama ay tahay gabadh dhakhtarada ma garanaysa aan weli guursanin family-geeda la nool oo la degan waxaa jira wiil ay isjecel yihiin wiilkaas magaciisa waxa la yiraahdaa Antonio. Antonio waxa weeyaan 28 jir waxa weeye boyfriend-keeda ama jacaylkeeda marka ay wada socdaan waxaanay wada socdaan oo uu ka dhaxeeyo jacaylku muddo 7 sano ah isagana da'diisu waxa weeyaan 28 jir. Gabadhan dhalinyarada ah waxaan soo qaadanaa Antonio wuxuu ka shakiyay jacaylkiisii shaki aad u badan bishii 12aad ee sanadkan aan soo dhaafnay 2020ga maadaama uu ka shakiyay wuxuu ka shakiyay inay qaadsiisay xanuunka COVID-19 wuxuu ahaa oo ma garanaysaa uu ka shakiyayna waxay ahayd yani xanuun ama ma garanaysaa wuxuu isku arkay sidii yani hargab oo kale ayaa markaa maxay tahay qabtay isaga waxoogaa yani sida qofka hargabka markuu ku dhaco kale waad garan kartaan markaas hargab baa ku dhacay waxaana u maleeyay in ma garanaysaa COVID-19 inay qaadsiisay wuxuuna nafta dhaafiyay oo uu dilay oo waliba si xun oo alxandaraa u dilay jacaylkiisii Lorena. Markii uu dilay jacaylkiisii waxa dhacday inuu wacay oo ma garanaysaa oo la hadlay booliskii markii uu la hadlayna booliskii soo gaadhayna waxay ogaadeen in ay gabadhu meyd tahay oo markii hore uu gartay isagoo maadaama uu dhakhtar yahay inuu nafta ka jaray waliba nafta muxuu uga jaray baa isweydiinaysaan wuxuu nafta uga jaray yani kuma dilin mindi ama ma garanaysaa nabar ama wax kuma dhufan naqaska ayuu ku dhajiyay markuu arkay inuu maaragtay yani isagoo xoogaa yar yani hargabka yar ayaa u maleeyay inuu corona yahay dabeetana naqaska ayuu ku dhajiyay mara ayuu afka kaga cijiyay sidaas ayaa nafti kaga baxday dhakhtarkiina waxaan la hadlay waxa la hadlay booliskii markuu la hadlay boolisku soo gaadhayna waa la qaaday waxa laga helay in ma garanaysaa markii booliskii qaadan isagana xaggii la geeyay stationkii iyadana dhakhtarkii la geeyay iyadana saas ayay ma garanaysaa ku gudaysay isagii baa ku soo hadhay Antonio waxaa la saaray maxkamaddii markii la saarayna waxa lagu yiri maxaad ku dishay wuxuu yiri waxaan ku dilay oo ay qaadsiisay xanuunka COVID-19 ka bacdina waxyaabahaas aan dareemay qabow iyo qufac iyo hindhiso bacdina iyana sidoo kale marka waxa la yiraahdaa okay inta maxkamadda loo gudbin waxa la mariyay labadaba baaritaankii markii maxay tahay jawaabtii oo la soo helay waxa soo COVID-19 maba qabaanba marka negative bay noqdeen markaas dadna waxa loo yimi Antonio ayaa maxkamaddii loo furay Antonio waxa loo sheegay inaan labadooda midna aan qabin COVID-19 iyaduna aan qabin isaguna aan qabin ugu dambeyntii Antonio waa la xukumay maxkamaddii ayuu weli ku jiraa maxay sidoo kalena ma garanaysaa waxa lagu xukumay 20 sano Antonio way dhimatay isagiina waxa lagu xukumay 20 sano maadaama 20 sano lagu xukumay Antonio saas ayuu isagiina ma garanaysaa oo jeelka ugu jiraa qisadeena maanta waxay ku saabsanayd Lorena iyo Antonio ninka ma garanaysaa jacaylkiisu ku dilay shakiga ama ma garanaysaa maxay ahayd tole isaga xanuun qabin uga shakiin COVID-19 qaadsiisay sidaan oo ku dilo ugu dambeyntiina iyadana ku dhimatay isagiina lagu maxkamadeeyay qisada waxaan ka baran karnaa ama ma garanaysaa aynu soo qaadanay shakiga yani sidoo u xun yahay iyo ma garanaysaa maxay ahayd tole inaan wanaagsanin yani qof aan waxba kugu sameynin ama waxa ma garanaysaa waxba kugu geysaninba inaad ka shakidid oo ma garanaysaa aad qofkii yani aad ma garanaysaa ama gacankaaga dhacdo ama wax kale ba samaysidba markasta waan iska ilaalina shakiga kulli dadka shakiga qaba maartay ama shakiyana badana ma wanaagsana yani waa qof
waalan dee waa wax yar unbuu dooga sarreeyaa ma garateen. Marka insha Allah qisadeena maanta sidaas ayay ku socotaa. Waxaan rajeynaya insha Allah inaad wax badan aad ka baran doontiin. Insha Allah waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad channelkayga markastana aad ku xidhnaatiin oo subscribe iyo like iyo share iyo comment wax kasta ma garanaysaa aad nagu soo daadisaan. Intaynu ku kulmayno qisadan qisa la midana waxaan idin rajeynayaa caafimaad badan insha Allah. waxaan idin leeyahay markastana ku xidhnaada channelkayga insha Allah. hadalka idinku badiyay maca salaama.